بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliya qodobada hadii Allah wada li raali ka noqdo aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ayaa sagootin u sameeyay dalxiisayaal u dhashay wadanka Shiinaha kuwa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maalinimadii shalay gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay kulamo la leeyihiin mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalkuna waxa ay magaalada Muqdisho ku soo gabagabaysay shir looga hadlayay horumarinta ciyaaraha dalka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socda dawlad goboleedyadu akhbaraadka dibadda daawadayaal warka aad kula soo doontaan waxa kamid ah booliiska wadanka Isbayn ayaa ku warramay in ay toogasho ku dileen shan ruux ay uga shakisan yihiin fal argagixisanimo oo ka dhacay wadankaasi inta daawadayaal waa qaar kamid ah qodobada warka aan idinku soo gudbin doono u diyaar garooba goordhow oo aan idin sii ambaqaado hagaag daawadayaal mar kale kulanti wacan jimco wanaagsan aan idin ambaqaado warka aniga Axmed Cali Kaahiya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu sagootin ugu sameeyay dalxiisayaal u dhashay wadanka Shiinaha kuwa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho kulankan casho sharafta oo loo sameeyay 27 dalxiisayaal ajaanib ah oo ka soo jeeda dalka China ayaa lagu qabtay H Hotel ee magaalada Muqdisho kulankaas ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka warfaafinta Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale lagu casuumay sanadihii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxay sameeysay horumar kala duwan iyadoo dadka ajaanibta ah ee Muqdisho imaanaya ay soo badanayeen ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Cilmi Xaaji Erg ayaa sheegay in labada dawladood China iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo cilaaqaad aad u wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay waxaan noo muuqato Muqdisho say u ekaan doonto hadii la yiraahdo markaan intaan arkay oo Chinese waxa ii masuurtay Muqdisho oo yeelan doonto Chinatown waa clear way hadii la yiraahdo sidii lagu yaqaanay caasimadaha adduunka in ay yeelato Chinatown waana furaheedii dadkaan noqon doono annaga China iyo Soomaaliya waxa jiro dhaqan hore iyo xiriir hore iyo abaal hore oo aan u hayno hadday noqon lahayd jid hadday noqon lahayd isbitaal hadday noqon lahayd tiyaatarka hadday noqon lahayd istaadiyo Muqdisho oo aan ku faanno dhanka kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa tilmaamay in uu aad u soo dhaweynayo dalxiisayaashan ajaanibta isla markaana uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad jecel martida waxaan rajaynaynaa maalmihii aad joogteen in Soomaalida aad ku barateen dad dhaqan wanaagsan dad soo dhaweynta ku fiican isla markaana waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan markaad wadankiina ku laabataan inaad dadkii oo walaalihiin iyo Chinese-kii uga sheekaysaan taariikhda Soomaaliya kadibna ay runtii horseed u noqoto bilowgiina inay noqoto magaaladii soo dhaweynaysay Chinese-ka sida uu gudoomiyaha u sheegayna marka labaad timaadaan in maamulka gobolka iyo dawladda federaalkaba ay diyaar idin la tahay inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan 首先你们在这边待了几天，然后我希望你们
回去时候跟中国人讲索马里的印象。我个人可乐嘛，在中国的时候，很多中国人问我从哪里来的，我从索马里来的时候呢，他们说海盗，所以就是他们你们在这里啊，我那个部长希望你们给。haweeney ka mid ah dadka dalxiisayaasha oo xafladda ka hadashay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka jirto horumar wanaagsan isla markaana dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad wanaagsan. 过去我们只知道索马里海盗。 markii hore waxaan haysanay muuqaal ah in Soomaaliya in ay tahay meel burbursan ama burcadbadeed ay buuxdo laakiin hadda waxa ii muuqata Soomaaliya in ay tahay waddan qurxoon iyo dad qurxoon isbeddelna leh. 我们热爱索马里，更热爱索马里的和平。我们祝福索马里。 aad ayaan u jeclahay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa rajo fiican iyo nolol wanaagsan ayaan idin rajaynaynaa. 我们热爱索马里，更热爱索马里的和平。 kulankaasi ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ciyaarahaas oo ay soo wada jiiteen dhammaan dalxiisayaasha. Axmed Cumar, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa la soo sheegay inay kulamo la qaadanayaan mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay kala hadlayaan arrimo dhowr ah. faafaynta warka waxaa Jowhar nooga soo diray wariyahayaga Abuukar Maxamed Bacadle. مسؤوليتنا ka socota golaha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya ee soo gaartay magaalada Jowhar ee xarun goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe mas'uuliin ka kala socota maamulka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. mas'uuliintani ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Faarax Juxa waxayna ka koobnaayeen wasiirka amniga qaranka, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka waxbarashada. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makarana ayaa khudbad soo dhaweyn halkaasi wareyntii ka jeediyay. aad iyo aadan idin soo dhaweeynaa waxaan ugu faraxsanahay imaashadiina iyo maaragtay booqashada aad noogu timideen soo dhawaada wax hadal badan ma furo laakiin waxaad leenahay soo dhawaada Jowhar idinkaas si fiican u sii arki doontiin hadda waa goor habeenee soo dhawaada kulley wixii howlaha noo dhiman iyo aragtideeda iyo barashadeedana waa noo dhiman tahay marka aadan ugu faraxsan inaad soo gaartiin soo dhawaada adileena. waxaa isna saxaafadda kula hadlay magaalada Jowhar wasiir Juxa wuxuuna si aad u faahfaahiyay ujeedka socdaalkooda ku saabsanaa ay ku soo gaareen xarun goboleedka Shabeelle ee magaalada Jowhar. Faarax Juxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta wafdi kooban baan ahayn waxay la socday wasiirka arrimaha gudaha wasiir Ducaale iyo wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Muqdisho aanu ka nimi waxaa farxad noo ah inaanu caawa halkan ku soo booqano xarunta maamul goboleedka Hirshabelle markii koowaadana waa nimi aad baan ugu faraxsanahay haddii alla idmo ilaa caawa iyo beritana waa idinla shoogaynaa ujeedada safarka iyagu waxa weeye inaanu dadka deegaanka dhaqan iyo madax siyaasadeedba aanu aragno oo la sheekaysano magaalada dadkana aanu aragno intaasun weeye marka ilaa iyo caawa waa wada joogaynaa ilaa iyo berito waa sheekaysanaynaa waa sarkaynaa magaalada dadkana waa baranaynaa aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan iyo si loo qaabisheen dhamaantiin magaalada wanaagsan wanaagsan. mas'uuliintani ayaa dad ku dhow waxay sheegeen in ay gudagali doonaan xalinta khilaaf hareeyay maamul goboleedka Hirshabelle. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, xarun goboleedka Hirshabelle, magaalada Jowhar. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku soo gabagabaysay shir looga hadlayay horumarinta ciyaaraha dalka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socday dowlad goboleedyada dalka ka jira. haddaba shirkan oo dhowr maalmood socday ayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay waxa warbaahinta uu aqriyay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Puntland Masar Axmed Cabdulle Tigana oo markaasi ka faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha shirka ka soo baxay. waxaana la isla qaatay qodobada soo socda. kow kulanku wuxuu u mahad celiyay wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga xildhibaan Khadiijo Maxamed Deeriye iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo suuragelisay inay si wada jir ah
u kulmaan kulankaasina uga dhaco magaalada muqdisho 16 ilaa 18 bisha Agost 2017 iyadoo la tixraacayo qodobka 9aad ee warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankii afraad ee ka dhacay magaalada Garowe caasimada dawladda Puntland ee Soomaaliya waxaa la go'aamiyay in furitaanka ciyaaraha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ay furmaan 22 Oktoobar 2017 oo ku aadan maalin Sabti ah. qodobka 3aad kulanku waxaa lagu go'aamiyay dhismaha 3 guddi oo kala ah guddiga sare ee qabanqaabada tartanka, guddiga tartamada iyo farsamada, guddiga qabanqaabada gudaha Jubbaland. gudiyadaas oo dhammaantood u xil saaran diyaarinta iyo hirgelinta qabashada tartanka ciyaaraha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir. qodobka 4aad kulanku wuxuu dhiirigeliyay in la dedejiyo dhismaha golaha dhalinyarada qaran ee ku meel gaarka ah maadaama dawladda federaalka iyo dawladaha qaybta ka ah iyo gobolka Banaadir xubnahoodii ay horay u soo gudbiyeen. waxaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha lagu adkeeyay in ay ku soo darto 3 xubnood ee laga sugayay lana magacaabo ugu dambeyn 20 bisha Agost 2017. kulankan wuxuu xoojiyay in dawlad goboleedyada aan lahayn ururo dhalinyaro oo rasmi ah iyo gobolka Banaadir ay ku soo dhisaan muddadii hore loogu cayimay warmurtiyeedkii Garowe Puntland. qodobka 6aad kulanku wuxuu dib u dhigay kulankii qabsoomi lahaa 20 bisha Agosto 2017 ee lala qaadan lahaa hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada maadaama ay ballaaran tahay hawsha tartanka dawlad goboleedyada oo ka dhici doona 22 bisha Oktoobar 2017 magaalada Jubbaland caasimada Kismaayo. qodobka 7aad waxaa la isku raacay in lagu soo bandhigo qabyo qoraalka koowaad ee siyaasadda qaran ee isboortiga Soomaaliya kulanka caasimada ku meel gaarka ee cadaadda dawlad goboleedka Galmudug oo ay qabsoomi doona dhamaadka bisha November 2017. mudanayaal ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa ka qayb galay kulan looga hadlaya ahmiyadda nabadgelyadu u leedahay bulshada ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose iyadoo markaasi kulankaasi laga soo saaray qodobo muhiim u ah bulshada gobolka Shabeellada Hoose. Muxudiin Macalin Cabdulle ayaa faafaynta warkan oo diyaariyay. shirka oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan aqalka sare ee dalka, odayaal waxgarad iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa diiradda lagu saaray ahmiyadda dib u heshiisiintu ay u leedahay gobolka Shabeellaha Hoose iyo sida looga qayb qaadan karo. Nabadoon Abuukar Kuula Muudey ayaa bilowga kulanka sheegay in si loogu wada noolaado nabad iyo deris wanaag ay soo agaasimeen shirkan oo door wanaagsan ka qaadan kara xasiloonida gobolka Shabeellaha Hoose. shirkan wuxuu soo jiitmaa bilooyin maaha waxaad barigeeda bilaabay kalfidhiga shanaad inuu yahay ummadayna kan maanta waa gabgabo maadaama gabgabo uu yahay anagoo ku hadlaaya nabadoonada Shabeellaha Hoose waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa midnimada gooshaan waxay ku saabsan tahay cid walba oo ka soo qayb gashay iyo ciddii hadda oo dhegta kumala doonto waa gool dib u heshiisiin waa gool nabadeed. Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Caddow ayaa u sheegay xubnihii ka qayb galaya shirka in iyada oo si wadajir ah looga shaqeeya danaha guud ay sahli karto in laga gudbo colaadda. waxaan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliyeed federaalka iyo heer gobolba aan ku guubaabinayaa iyo golahanba wax la yiraahdo iyo intii joogtay inta ummadda Soomaaliyeed intay maqlayso wax la yiraahdo participatory development horumar oo qof kasta kaalintiisu ka qaadanayo qof kasta hadduu doorkiisa ka ciyaaro nabad sugidda waa u sahlanaysaa wasaaradda arrimaha gudaha hawsheeda waa u sahlanaysaa odayaashan geesiyaashan hawshooda waa u sahlanaysaa. marka waxaan ku talin lahay aanan ku talin doonaa mar walbo in qof walba xil iska saaro.
senatar axmed nadiir macalin oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo gabagabadii kulanka hadlay ayaa sheegay in wadatashiga iyo dib u heshiisiinta waxgaradku ay ka shireen ay door ka qaadan doonaan hirgelintiisa. waxaan aaminsanahay waana wada tashateen taladii aad gaarteenna aad baan u soo dhaweynayaa aniga siyaasi ahaan waan soo dhaweynayaa. xaggeen u soconnaa cid aan turmayna ma jirto cid aan shirkaan ku duurnayna ma jirto cid lagu turmayana ma jiraan. waxaan aaminsanahay waxaan u soconnaa dariiq nabadaan ku soconnaa dariiqaan u soconnana waxaa weeye dariiq nabada dariiq colaadeed maaha midkaan u soconno. muxidiin macalin cabdulla warbaahinta qaranka muqdisho. isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho ayaa la gaarsiiyey deeq macaawino ah oo loogu talagalay ciidamada naafada xoogga ee ku jira isbitaalkaasi. wariyahayaga maxamed cali axmed ayaa faahfaahinta noo diyaariyey. raashinka oo qayb ka ah deeqdii laga helay dalka turkiga ayaa guddiga gurmadka abaaraha qaranka waxa uu gaarsiiyey ciidanka naafada xoogga dalka ee degan isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho. agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha maryan aadan amiin oo sidoo kale xubin ka ah guddiga abaaraha ayaa ka hadashay waxa uu ka kooban yahay. anoo ka mida guddiga gurmadka qaran ee abaaraha ahna agaasimka arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha aan soo gaarsiiyey deeq raashina oo naga soo gaaray walaalaheen turkiga iyo indoneesiya oo isugu jirto bur bariis iyo sokor ahna 300 oo loor aan ku guddoonsiin rabaa madaxda sare ee naafadan halkan ku jirto ee martiini. afhayeenka ciidanka naafada xoogga dalka cabdulaahi maxamed ducaale oo dowladda uga mahad celiyey kaalmadan ayaa baaq u diray bulshada kale. waxayna guddoonsiday oo halkaan noogu keentay annagoo aan naafadii 300 oo loor oo raashina oo iskugu jira bariis bur sonkor. sidaa la cadligeed waan u mahad celinaynaa guddiga dhammaantiis iyo odayaashii soo gartay xaaladdaas in naloo keeno raashinkaas. intaa ka bacdi waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanaynaa sidii la rabo dowladda in loola shaqeeyo iyo guddigaba. naafada isbitaalka martiini ayaa ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladii dhacay 1977kii. maxamed cali axmed rooraaye warbaahinta qaranka magaalada muqdisho. halkaa warka kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliya. akhbaraadka gudaha ayaa daawateen markaana qodobka warka dibadda ee soo gaaray ugu muhiimsan. Booliiska waddanka Spain ayaa sheegay inay toogasho ku dileen 5 ruux oo ay uga shakiyeen inay argagixiso xiriir la leeyihiin iyadoo habeenkii xalay ahaa fal ka dhacay waddankaasi magaalada Barcelona ay ku dhinteen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba Cabdiraxmaan yacquub maxamed ayaa faahfaahinta warkan oo diyaariyay. ugu yaraan 13 ruux ayaa lagu soo warramaya inay geeriyoodeen kadib markii maalnimadii shalay gelinkeeda dambe la sheegay in nin watay gaari uu jirsiyay dad badan oo marayay hareeraha wadada. arrintaasi ayaa waxay ka dhacday agagaarka meesha lagu magacaabo Las Ramblas oo ku taala magaalada Barcelona. kadibna darawalkii gaarigaasi uu ka baxsaday oo uu cararay oo booliiska ay raad joogaan soo qabashadiisa. ra-iisul wasaaraha waddanka Spain Mariano Rajoy ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi falal argagixisanimo. xukuumadda waddanka Spain ayaa isku xiraya weerarkan ka dhacay magaalada Barcelona iyo midka kale ee isna ka dhacay magaalada Alcanar. weerarkaasi waxa ku geeriyooday 1 ruux. booliiska Spain ayaa sheegay in xaaladda amniga magaalada Cambrils ay haatan gacantooda ku jirto. dalxiisayaasha iyo dadkii kale ee ku noolaa deegaankaasi ayaa cagta wax ka dayay oo ka cararay gaariga markii ay arkeen xawli sare oo uu ku soo socdo iyaga. taliyaha booliiska dalka Spain Joseph Luz ayaa sheegay in ay qabteen 2 ruux oo looga shakiyay inay ka dambeeyeen weerarkaasi. hase yeeshee labadaasi qof ayaan midkoodna ahayn ninkii waday gaariga. Joseph Luz oo taliyaha booliiska dalka Spain ayaa ugu dambeyntii sheegay in weerarada ka dhacaya gudaha dalka Spain ay hayeen kuwa isku xiran oo si qarsoodi ah la doonayay in lagu fuliyo. ugu dambeyntii weerarkaasi waxay sheegtay qolyaha argagixisada ee isku magacaabay khilaafada islaamka. waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo warka caalamka aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliya inta ayaan ku soo idleenayaa.
waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka meel walba oo dunida ka joogtaan maalin wanaagsan ayaan idin leenahay anigoo idin la socodsiinaya warka iyo bahda igala qayb qaatay oo dhan waxaan idin leenahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu